caawa gobolka bariga dhexe xiisadiisu waa adag tahay. Israa'iil waxay markii ugu horreysay qiranaysaa in sirdoonka waddanka Iiraan ay doonayaan gudaha nidaamkaasi in ay ku dhex qaarajiyaan mas-uuliyiin sare oo ka mid ah Tel Aviv. haddaba sidee arrintan loo qorsheeyey? maxayna tilmaameen hay'adaha sirdoonka gudaha iyo dibadda ee nidaamka Israa'iiliyiinta? yihiin mas-uuliyiinta la baadigoobaya. Iiraan waxa ay bilowday meel ka baxsan gudaha waddankeeda in ay ku beegsato dhinacyada ishayaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahuna waxa uu ku dhawaaqay in uu sugayo amar Maraykanka ah si uu ugu biiro dagaalka ka dhanka ah dowladda Iiraan. Kuwait oo caawa cardaadiqada laga dhigay kadib markii gantaalo aad u culus lagu garaacay dhinac walba isla markaana la soo warinayo xiisadda inay marayso meeshii ugu adkayd. dhinaca kale marka la fiiriyo ciidamada ilaalada kacaanka jamhuuriyadda islaamigana waxa ay tilmaamayaan in la joogo waqtigii kama dambaysta ahaa ee ay samayn lahaayeen weeraro argudasho ah. Trumpna waxa uu leeyahay Iiraan waxa ay ka daciifsan tahay markii aynu dagaalka ku qaadaynay. haddii ayna la dagaalami lahayn Iiraanna waxa uu leeyahay cid wax ugu ooli lahayd ama wax ka qaban lahaydba ma jiraan. haddaba gobolka bariga dhexe haddii dagaalka Israa'iil ay ku soo biirto xaalku sidee noqon doonaa? qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey oo ay ka mid yihiin Iiraan iyo Ciraaq oo tallaabooyin wadajira qaaday iyo weliba duqaymo kala duwan oo laga soo sheegayo dhulka Falastiiniyiinta gaar ahaan magaalada go'doonsan ee Gaza. arrimahaas ayaan dulmari doonaa khiyaarta inala socotay meel kastoo aad joogtaan. soo dhawaada, ha hilmaamina muuqaalka inaad like saartaan, YouTube-kana aad subscribe saartaan. marka ugu dambaysa ee barnaamijka aad dhammaysatana waxaad qaybta hoose uga jawaabtaa su-aasha ku aadan Maraykanka muxuu xilligan u raajicinayaa in Israa'iil uu dagaalka ku soo biiriyo? ma Trump ayay xaaladda ku xun tahay? maxaase lagu tilmaami karaa mustaqbalka natiijada dagaalka? aragtidaada qaybtan si kooban hoos ugu soo qor. aadadumaaga ah ee Iiraan waxa ay jawaab adag siisay madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trump oo isaga ku dhawaaqaya saacadihii ugu dambeeyey in uu qaadayo tallaabooyin ujeedadooda ay tahay in uu si adag oo aan la maqal u weerari doono dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan. Tehraan oo arrintaasi jawaab adag ka bixisa waxay leedahay saxan ayaan diyaar u nahay ayuu ku leeyihiin war ay caawa soo saareen dowladda Iiraan. hadday jawaabta Tehraan marka la fiiriyo waxa ay ka dhigan tahay si kasta uu Trump u goodiyo isla markaana uu u baalo xoofteeyo in dowladda Iiraan aysan boodyo qaawiskaasi aqbali doonin. xaalkana waxa uu u muuqanayaa in ugu dambayntii ay noqon doonto awood in lagu kala baxo maadaama ay muuqanayaan albaabada diblomaasiyadda dhinac walbaba in ay ka soo xarmayaan. dowladda Iiraan ayaa khamiistii ku dhawaaqday in ay sii wadi doonto weerarada ay ku sheegtay kuwa aargoosiga ah ee ka dhanka ah ciidamada Maraykanka iyo xulafadiisa, iyadoo sheegtay in tallaabooyinkaasi aysan joogsan doonin inta weerarada lagu hayo dhulkeeda ay socdaan. dowladda ayaa sidoo kale ka codsatay in ay u diyaarsan tahay xaalad kasta oo cadowga qaadi karayo mid la mid ah in ay samayn karayso. waxa uu leeyahay Maraykanka haddii uu xagga yaga taako u soo qaado 15 taako oo kale ayaan dhinaciisa u qaadi doonaa. raggu iddaa kuguma daayo laakiin waxa uu kugu daayaa aan istayno. waa jawaabta iyo weliba falsafadda weerar celinta dowladda Iiraan ay dagaalada ku qaadayso. xiisadda ayaa sii xoogaysanaysa u dhaxaysa Washington iyo Tehraan waxaana ay kordhisa walaaca laga qabo in gabi ahaanba la carqaladeeyo dhoofinta shidaalka ee marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz. halka dhinaca kale kooxda Xuutiyiinta Yemen ay ku dhawaaqeen inay xanibaad ku soo rogeen dekedaha Sacuudiga iyagoo adeegsanaya marinbiyoodka Hormuz. oo waxaa la leeyahay haddii Iiraan cunaqabatayntan badaha la sii saaro inana Sacuudiga ayaan tallaabadaasi ka qaadi doonaa oo waxaana la dagaalamaya Trump oo kaliya maaha. sicirka shidaalka sare ayuu u kacay. saamaynta colaadan ayaana sabab u ah waxaana
qiimaha halka fuusta uu gaarayaa baa layidhi $101.93 8% ayaa lagu soo warramayaa suuqyada dhaqaalaha adduunka in ay hadda muujinayaan in ay kor u socdaan sida suuqa saliidda ee la yidhaahdo WTI taasoo hadda la leeyahay xaalku waxa uu gaaray meeshii ugu xumayd. qaramada midoobay caawa digniin adag ayay bixisaa waxaana ay leedahay nidaamka caalamka iyo haykalka ilaalinta qawaaniinta dunida ayaa meesha ka baxaya haddii dagaalkan uu noqdo mid caalwa ah oo la xallin waayo. afhayeenka ciidamada Iiraan Maxamed Ikrami Niyaa ayaa sheegay isagoo hadlayay weerarada argoosiga ah ee ciidamada qalabka sida waxa ay socon doonaan buu yidhi inta weerarada Maraykanka ee ka dhanka ah kaabayaasheena dhaqaalaha iyo weliba gobollada xeebaha Iiraan ay socdaan. sidaas darteed ma jiraan wax la yiraahdo cafin oo inana waxaan samayn doonaa weerartaasi u dhiganta. waxa uu intaasi ku daray in ciidamada Iiraan ay diyaar u yihiin dhammaan xaalad kasta oo suuragal ah oo ujeedadu ay tahay in dhibaatooyinkaasi la qaado. Iiraan maanta oo kaliya waxa ay daakum ka dhigtay baqaare kala duwan oo kaydadka hubka ee Maraykanku ay yaaleen sida saldhigga Ali al-Salim ee ku yaala gudaha waddankaasi Kuwait, kaydadka hubka ee saldhigga Arifjan iyo weliba iyadoo ilaalada kacaanku ay sheegeen in ay burburiyeen raadeero casri ah sida raadeerka Thad, nidaamka difaaca cirka ee Patriot, raadeerka loo yaqaano C-RAM iyo weliba xarun diyaaradaha qumaatiga u kaca ay Maraykanku ay ku lahaayeen gobolka Bariga Dhexe. waa markii ugu xoogga badnayd ee Iiraan ay ku dhawaaqeen dhammaan bartilmaameedyadii dagaalka ay qaadeen in ay ku guulaysteen. hase yeeshee ciidamada Urdun ayaa waxa ay leeyihiin waxaynu qabanay weerarada gantaalihii lagu soo qaaday waddankeena. taliska ciidamada Maraykanka ee CENTCOM la yidhaahdo ayaa xaqiijiyay in habeenkii 12aad oo xiriira ay fulinayaan weeraro bartilmaameeda oo la xiriira goobaha militariga ee waddanka Iiraan. meelaha sida adag ee Iiraan loo garaacay waxaa ka mid ah Bushehr, Ahvaz, Konarag iyo weliba dekedda Jabahar iyo weliba Sariq oo ku dhow marinbiyoodka Hormuz. sidoo kale wakaaladda wararka ee Tasniim ayaa sheegtay in gantaalaha Maraykanka lagu weeraray jasiiradda Qasham maanta ilaa iyo caawa duqeymo kala duwan oo soo noqday. digniin ayaa ka imaanaysa hoggaanka sare ee dowladda Iiraan caawa. wasiirka amuraha dibadda ee waddanka Ciraaq Abbas Araghchi ayaa waxa uu ku tilmaamay in Maraykanka aan caqli galahayn waxa uu samaynayo kibir iyo amar ku taagleyna wax ku dhisanaysan hadda adduunka ka shaqayn karin. Trump loo baahan yahay in caqliyadu ay u soo laabato islamarkaana weerar Iiraan aan waxba looga qaadi karin hadda oo waqti badan ku dhumanayo. sidoo kale taliyaha hogaamiyaha sare ee Iiraan Maxamed Muqbir ayaa ka digay colaadda ka socota goobaha shidaalka iyo gaaska ee gobolka in ay saameyn weyn ku yeelan doonto dhaqaalaha adduunka, islamarkaana Iiraan ay ciqaabi doonto cid kasta oo tallaabooyin ku soo qaada gudaha waddankeeda. Israa'iil waxa ay markii ugu horreysay qiranaysaa in ay ka badbaaday fashil dagaal sirdoon oo xoog leh oo ciidamada Iiraaniyiintu ay caawa doonayeen inay ka sameeyaan gudaha waddankooda kadib markii la ogaaday hogaamiyaal sare oo ka tirsan dowladda Likud oo hogaamiyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu in ay faraaci dirih ku badbaadeen kadib markii ay bilaabeen ciidamada ilaalada kacaanka jamhuuriyaddu in ay si weyn u beegsadaan. calaamado isi soo taraya oo ka imaanaya Israa'iil ayaa muujinaya in nidaamkaasi uu isku diyaarinayo suurtagalnimada dagaal cusub oo ka dhana Iiraan, iyagoo kordhiya heeganka ciidamada lana sugaya sida Maraykanka uga falcelin doono colaadda sii xoogaysanaysa ee ka taagan gobolka Bariga Dhexe. warbaahinta nidaamka ee Kan ayaa Khamiistii sheegtay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu
uu maalinka jimcada ah isugu yeerayo golahiisa wasiirada amniga ee loo yaqaano cabinetka si looga hortago diyaargarowga amni ee la xiriira waxa lagu tilmaamay suurtagalnimada soo kordhaysa xiisadda military oo lagu jira baa layidhi dhammaadka toddobaadkan. Israa'iil waxa ay sare u qaaday heeganka ciidamadeeda sida warbaahinteedaba caawa ay ku waramayaan. warbaahinta nidaamku waxa ay si weyn uga hadlayaan suurtagalnimada in colaadda gobolku ay sii fido iyadoo sheegay in hay-adaha ammaanka Israa'iil ay sare u qaadeen heerka feejignaanta si ay ugu diyaargaroobaan isbeddel kasta oo soo degdegi karaya. wasiirka gaashaandhigga nidaamkaasi ee Katz ayaa intii lagu guda jira kulanka amni sheegay Israa'iil waxa ay diyaar u tahay dhammaan suurtagalnimada dagaalkaasi iyo tallaabooyinka lagama maarmaanka ah. dhinaca kale wasiirka tamarta ee Ali ayaa waxa uu sheegay in ugu baaqay hay-adaha nidaamkaasi iyo shacabka inay u diyaargaroobaan xaalad kala duwan oo gobolka ka dhici karaysa. waraysi uu siiyey idaacadda ciidamada Israa'iil waxa uu wasiirka tamarta nidaamka ku yidhi waxaan aragnaa waxa ka soconaya gobolka. Maraykanku waxa uu weerarayaa Tehraan, Iiraanna waxa ay weeraraysaa dalalka gobolka ku yaala. arrintan waxay u baahan tahay feejignaan iyo sare u qaadista heeganka ciidamadeenna. sidaasi darteed waxaynu rabnaa in aan samayno tallaabo kasta oo guula lagu keeni karo. waxa uu sidoo kale sheegay in haddii Iiraan ay tallaabo military ka qaaday Israa'iil nidaamka uu si xooggan uga jawaabi doono. waa sida uu hadalka u dhigay isagoo xusay in Israa'iil ay leedahay awood sirdoon iyo mid weerar oo isku dhafan, sidaasi darteedna aan wax dhibaato ah aysan filan karayn. wargeyska kale ee Israa'iiliga ah ee la yiraahdo Diicood Axronood oo soo xigtay khubaro sirdoon oo reer galbeed ah oo qiimeynaya Iiraan in laga yaabo inay isku daydo inay ballaariso dagaalka isla markaana Israa'iil ay ku soo jeedo colaadda hadda socota ayaa aad u badan sida khubaradaasi saadaasha ay tilmaamayaan iyo weliba ilaha sirdoonka ay falanqaynayaanba sida ka muuqanaysa. sida wargeysku uu sheegay khubaradu waxay rumaysan yihiin in Tehraan ay isku dayi karayso in ay ka faa'iidaysato waxay u aragto kala aragti doonaanta u dhaxaysa Washington iyo Tel Aviv. hase haatee xiisadda caawa waa ka sii daraysa waxaana la eegayaa Trump tallaabooyinka uu qaadi doono iyo isbedelada daba soconaya. hase haatee sirdoonka Israa'iil ayaa waxay leeyihiin qudhooda waxaynu ka hortagnay weerar wejigabax laga qaadi lahaa haddii waddanka Iiraan ay gudaha nidaamka ay ka samayn lahaayeen. madax ayaa faracididood ku badbaaday ayay leeyihiin. hay-adda sirdoonka dibadda ee nidaamka Israa'iiliyiinta ee Mossad la yiraahdo ayaa sheegtay in ay fashilisay qorshe ay ku eedaysay sirdoonka Iiraan oo lagu doonayo in koox howlgal ah si qarsoodi ah loo geliyo Israa'iil si ay u beegsadaan mas-uuliyiin sare oo Israa'iiliyiin ah. warar ay baahisay idaacadda nidaamka ciidanka oo xiganaysa Mossad waxaa lagu sheegay in qorshahaasi la joojiyo ka hor inta aan la fulin. Iiraan waxa ay ballaarisay howlgalkeeda ayaa lagu yidhi warka ay sii daysay hay-adda sirdoonku. bayaan ay soo saartay Mossad ayaa lagu sheegay in sirdoonka Iiraan uu sanadihii ugu dambeeyay isagoo kaashanaya ilaalada kacaanka islaamiga ah waday olole caalami ah oo lagu beegsanayo danaha Israa'iil iyo shacabkeedaba isla markaana uu dhowaan kordhiya baa layidhi isku dayga lagu fulinayo weerar gudaha nidaamka Israa'iil ka dhaca. hay-addu waxay sheegtay in saraakiil ka tirsan sirdoonka Iiraan ay qabteen muwaadiniin ajnabi ah oo loo adeegsanayo howlgallo lagu dhaawacayo amniga isla markaana lagu dili lahaa mas-uuliyiin sare oo Israa'iiliyiin ah. tani waxay ka dhigan tahay Netanyahu in uu si dirqiya ka badbaaday maadaama dowladda Tehraan ay horey ugu baaqday shacabkeeda in ay sugayaan war ay ku tiirsadaan oo la xiriira argudashada Ali Khamenei oo dowladda Maraykanka iyo nidaamka Israa'iiliyiintu ay dileen 28 Febraayo. tan oo xitaa walwal iyo waliba shaki weyn gelisay Trump isagoo warbaahinta u sheegay cidda lagu raad joogay inuu isaga yahay. laakiin Israa'iil markan waxay leedahay faracididood ayaa lagu badbaaday.
موساد ayaa sheegtay in iskaashi ay la leedahay hay'adda amniga gudaha ee Shaabaan iyo hay'ado sirdoon oo caalami ah oo horseeday baa yiri in la fashiliyo 10 weerar oo la sheegay in Iiraan ay qorsheynaysay weerar badan ayaa la hor istaagay dad badanna waa la badbaadiyay baaritaanada dacwada sharci ahna waa soconayaan ayaa lagu yiri warkan hadda banaanka yimi shakhsiyaad ayaa la magacaabay ay suuragal ahayd in ay tilaabooyinkan qaadaan Mossad waxay sheegtay in lagu magacaabo Trude Osco oo loo yaqaan Valerie Philip kuna noolaa Faransiiska uu mas'uul ka ahaa qorista koox howlgal ah oo ka kooban ajaanib la qorsheeyay in la geliyo nidaamka Israa'iil ayuu yiri haddii hay'addu waxay sheegtay in Philip ay qorteen Valerie laba nin oo kala duwan oo la yiraahdo Baba Mohammed Rida Haji Javan oo loo yaqaan Babak iyo waliba Mahmoud Nidaam Yid oo isna loo yaqaano Nirtim ayaa howlgalkan ujeedadu ahaa in ay qabtaan Valerie xiriir la sheegay inay la lahaayeen ganacsado muqaadaraad kala duwan ka shaqeysa ayaa sidoo kale arrintan lagu soo diray sirdoonka Israa'iil saraakiil sirdoona Israa'iil oo la magacaabay ayaa sidoo kale warbixintan ka dhex muuqanayay inta lagu guda jiray baaritaanka caalamiga ah Mossad waxay sheegtay in la aqoonsaday saraakiil sirdoon Iiraani ah oo lala xiriirinayo qorshaha kuwaas oo magacyadooda lagu kala sheegay Asadullah Bahsad Osri iyo waliba Fahid Musa Mumi iyo Mohammed Hassan Dokh iyo waliba nin la yiraahdo Hamid Qasimi in ay arrintan si weyn uga shaqeynayeen Mossad waxay ballan qaaday in ay ka hortagayso waa sida ay tilmaantay tilaabooyin kasta oo la doonayo in nidaamkaasi howlgallada ka soconaya ay ka hortagaan warkan si toosa banaanka looma keenin laakiin waxa muuqanaysay dowladda Iiraan in ay wax yar u jirsatay ninkii Netanyahu ahaa iyaga inay cashar kala raacaan laakiin Mossad howl bay qabatay waxay leeyihiin waxaynu mudanahay bil sharaf in nala siiyo dhinaca Kuwait caawa hurdo ma jirto lama ladayo meel kasta hogaanka nidaamyada gantaalaha ka hortaga iyo madaafiic kale oo hawada looga hortagayo ayaa isku haysta cid kasta ay waxay ku jirtaa shub iyo meel adag gantaalaha Iiraan caawa lagama nasanayo marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan haddaba taliska guud ee ciidamada dowladda Kuwait ayaa ku dhawaaqay in nidaamyada difaaca cirka ee dalku ay ka hortageen weerar isugu jira gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn kuwaasi oo lagu eedeeyay inay dhinaca Iiraan ka imaanayaan oo caawa laga hordilaayahay waddankaasi Kuwait bayaan lagu daabacay barta X ayaa lagu sheegay in ciidamada difaaca cirku ay wali wadaan howlgallo lagu soo ridayo gantaalo iyo diyaaradaha iswada ee weerarka ah talisku waxa uu sheegay in qaraxyada ay maqlayaan shacabku ay ka dhasheen gantaalada iyo diyaaradaha laga hortagayo oo gantaalada Iiraan aan ilaahdee Kuwait ay burburinayaan dhinaca kale warar ay baahiyeen warbaahinta ayaa sheegaysa in ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga Iiraan ay hore u sii sheegeen mas'uuliyadda weerarka hadda soconaya laakiin caawa xaalku ma sahlana waxaanay u muuqataa dhinacyadu in ay aad u loolamayaan madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo hadlana waxa uu leeyahay Iiraan waa cad jilicsan oo carab saaran calalis uma baahna in caloosha la geeyo oo kaliya ayaa ku filan taasoo macnaheedu yahay waynu ka adkaanay Iiraan hase ahaatee Iiraan caawa gantaalaheeda ayaa laga hoyan layahay sida ka muuqanaysaba wararka hadda soo baxaya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Iiraan maanta ay ka dacaysan tahay sidii ay ahayd 4 bilood ka hor isagoo shaaciyay in uu si dhab ah uga fiirsanayo in uu amar ka bixiyo weerar military oo ballaaran oo lagu qaadi karayo waddankaasi hase ahaatee hadalka Trump wuxuu u muuqanayaa mid uu ku qarinayo in weli uu xal ka keeni layahay dagaalada si xoogaysanaya ee ka taagan gobolkaasi bariga dhexe dhinaca kale markaan eegnaa caawa nidaamka Israa'iil waxa uu weerar kala duwan ku qaaday
qaybo kala duwan oo ka mid ah dhulka Falastiiniyiinta gaar ahaan magaalada Gaza isbitaalka la yiraahdo Macmadani Daarushifa iyo kuwa kale oo kala duwan ayaa la soo warinayaa dhaawacyo in la geeyay diyaaradaha dagaalka nidaamka ayaa duqeyn fulayay iyadoo sidoo kalena caawa duqeyme ay ka dhaceen qaybo ka mid ah koonfurta magaalada Beirut ee caasimadda waddankaasi Lebanon dowladda Ciraaq iyo sidoo kale waddanka Iiraan waxa ay qaadeen tallaabooyin wada jira waxaana muuqanaya wadahadalladii ka soconaya magaalada Tehran ee ra'iisul wasaare Al-Saydi oo halkaas ku tagay in ay guuldarro ku dhamaadeen kadib markii la yiri dhibaatada gobolka waa in loo sinaadaa sida ka muuqanaysa bayaanka wada jirka ah ee dalalkaasi caawa habeen wanaagsan khiyaaray aad u mahadsantiin tabinta qaybtan intaas ayaan ku akrinaya laakiin adiga aan ku weydiiyo su'aasha caawa iyo barnaamijkeenu waxay noqonaysaa Trump ma guuldarro ayuu ka qaadayaa gobolka bariga dhexe mase Iiraan waa ka guulaysan karaa maxay ka dhigan tahay abaabulka dagaalka cusub uu hadda doonayo inuu ku dhawaaqo in Israa'iil dagaalka la soo galiyana macnaheedu waxay tahay Mareykanka in uu tahli waayo kaligii in uu wax ka qabto dowladda Iiraan aragtida